السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وعلى مشارات ميديا برودكشن waxaad nooga barateen alaabeyna idiin soo gudbinaa misaan idiin soo baahino aad ka bogataan bogayagaasi YouTube-ka waxyaabo ku saabsan casharada balse maanta waxaan idiin sheegayaa meel kasta aad joogtaan Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay waxaan idiin sheegayaa maanta kama hadlayna casharada waxaas balse waxaan ka hadlaynaa waan madaxweynaha Soomaaliland ama dadka ka dambeeyay aan u hambalyeynaya joojinta qaadka أصحابي joojinta qaadka hore ayaad u maqli jirtay Soomaaliland waxa ay joojinaysaa qaadka balse maanta waa ay dabowday oo bishaasi barakaysan ee Ramadaan waa la joojinayaa ayaa la yiri balse si sax ah wali waxaad ogtiin inaan si sax ah loo joojin oo haddii ay bisha barakaysan ee Ramadaan ay dhamaato dib loo furi doono ama sideedii u socon doono asxaabi hadaba waxaan idin leeyahay waa maxay waxyaabaha isbedelka ku iman doona ama isbedelaya haddii ay Soomaaliland joojiso qaadka saddex shay ayaan anigu maskaxdayda ama saniyada ka soo xigtay saddexdaas shay ayaan doonayaa inaan maanta asxaabi halkan kula wadaago saddexdaas shay asxaabi waxa weeye ka koowaad Soomaaliland haddii ay qaadka joojiso waxa kor u kacaya ama kobc ku imanaya dhaqaalaheeda asxaabi waxa la socotaan Soomaaliland dhaqaalaheedu waxa uu ku xidhan yahay livestock ama xoolaha nool asxaabi sad la socotaan livestock ayaa Soomaaliland ku xidhan yahay dhaqaalaheedu saasiteed haddii ay iska joojiyaan qaadka waxa la socotaa odayga kuuliga hay'adda aroortii gala ee ka soo baxa 12 kala bar lacagtiisa si qaad ayaa uu siinaya qodobka koowaad waxa weeyaan haddii la joojiyo qaadka odaygaasi kuuliga ee kala barka qaadka siisanaya kuuliga kala badh ayaa uu meherad ku furan doona ama waxyaabo kale dhigelin doona oo dhaqaalaha kobca gelin kara meelo kale oo far badan oo laga yeegi karana waa jiraan qodobka labaad ayaan asxaabi guda galina qodobka labaad waxa weeyaan waxa ka baxaya meesha waxa shayga loo yaqaan qabyaalada ee ay Soomaalidu aad iyo aad uga qaylsay asxaabi waa maxay qodobka loo yaqaan qabyaalada qodobka loo yaqaan qabyaalada waa xan iyo iska sheeg ama si xun iyo weeyaan maadaama uu qaadkaasi kalifayo qabyaalad sida uu kalifay asxaabay wasiyar iminka waxa isla kulmay oday yar oo qolo ah iyo oday kale oo qolo ah hal meel ayay ku wada qaylayaan waxay ka sheekaysanayaan waa maxay waxaana berigi intaasan idinka dilnayo laxbaad nagala cararteeno waxyaabo noocaas asxaabay qabyaaladu bartaas ayaa ay ka bilaabmata hadaba waxaad la socotaa haddii Soomaaliland ay qaadka joojiso in qabyaaladu ay meesha ka baxayso waa qodobka labaad asxaabay qabyaaladu meesha waa ay ka baxaysaa haddii Soomaaliland qaadka joojiso waayo qabyaalada iyo qaadku waa isla socdaan ma kala haadaan meesha waxa ka baxaya asxaabi oo kale caafimaad qodobka saddexaad idin sheegaya ama sidaan idin kordhinaya waxa weeyaan waxaad la socotaan asxaabay in badan oo kamida Soomaaliland ama dadka ku dhaca Soomaaliland maalintii waxa ay qubtaan wax ka yar $1 nus dollar 25 asxaabi dhaqaaluhu waa inoo kobcaya haddii aad qaadkaasi joojisaan madaxweynaha waxaan ku bogaadinayaa inuu qaadkaasi joojiyo bil Ramadaan iyo bil kastaba 12 bilood iyo sanadada soo socdaba inuu saasi ugu hayo oo uu joojiyo qodobkaasi saddexaad asxaabi waxa uu noqonayaa waxa meesha ka baxaya faldambiyeedyadii asxaabi waxa la socotaan mar kasta faldambiyeedku waxa uu ku dhacaa ama isqabsiga ama tuuganimada waxyaabo fara badan oo dadka lagu xiro faldambiyada ama tuuganimada waxyaabo fara badan oo dadka lagu xiro waxa ay ku dhacaan laba qof oo isku yimid oo ka wada sheekaystay waxyaabihii ay soo dhici lahaayeen habeen dambe waxay soo qabsan lahaayeen dadkay soo dileen kadibna qaadkaas ay cunayaan marka ay qaadkaas soo dhameeyaan asxaabay waxa ay ku dhaqaaqayaan faldambiyeedkoodii koowaad asxaabay badanaana waxa faldambiyeedkiisa waxa weeye qof sakhraansan qof waalan iyo qof hay'atole maanduuriya ama si qaadkaasi cunay asxaabay waxaan maleynayaa qodobkaasi waa qodobkii ugu dambeeyay aan idin soo jeedin doono waa aniga Bashiira waxaan leeyahay qodobo kale haddii aad haysaan oo kuwani ka duwan oo aad maskaxdiina ka soo maasheen nugula wadaaga bartayada Instagram-ka Bashiir qoqor uu ku soo bixi doonaa barta Twitter-ka barta Facebook-ga waad nagala socon kartaa barta YouTube-ka noogu soo qor commentiga waxyaaba ama fariimaha aad u diraysiin madaxweynaha Soomaaliland ama waxyaabaha isbedelaya haddii qaadkaas la joojiyo asxaabi waxaan maleynayaa inaad ka bogateen saddexdaas qodob waa aniga Bashiir waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ramadaan Kariim.